السلام عليكم صاحبيال soo dhawaada mar kale kuna soo dhawaada muuqaal kale oo cusub muuqaalkan maanta waxaan ku eegi doonaa ninkan oo tagaya magaalada ugu yar sidoo kale dadka ugu burburanay ku nool yihiin sidoo kale ugu fog jasiiradda yar hadaba waxa ku dhex taala bartamaha Pacific Ocean-ka haddii aad istiraado maapka ka eegna waxaad arkaysaa in dhibic yar oo kale ay ku muuqato oo xitaa la arkayn jasiiradda yar ayaa ah jamhuuriyadda ugu yar ee madaxa bannaan sanad walba waxa jasiiraddan ka dad lagu qiyaasay 200 qof oo kaliya haddaba ninkan Turkiga ah ayaa ugu horeyn waxa uu soo gaarayaa magaalada Istanbul halkaas oo diyaaradu ka soo raacayo waxaanu 13 saacadood iyo badh waliba u soconayaa si uu gaadho magaalada San Francisco ee dalka Mareykanka halkaasna 7 saacadood kale ayuu sii joogayaa kadibna diyaarad kale ayuu ka soo raacayaa isagoo 13 saacadood kale uu sii soconaya jasiiradda Fiji Island halkaas oo iyadana 7 saacadood kale uu ku sugi doono kadibna wuxuu flight-ka ugu dambeeyay 4 saacadood iyo badh qaadanaya ku tagi doona magaaladii uu doonayay ee Nairobi tan oo ka dhigaysa totalka uu soo socday 48 saacadood markuu madaarka sida uga soo degna wuxuu sheegayaa in wadankan uu yahay wadanka dadka ugu yar ay soo booqdaan sidoo kale wadanka ugu dhowna uu ka fog yahay 10 kiiloomitir haddaba markuu jasiiraddan yar cagaha sida uu soo dhigo wuxuu sheegayaa si uu dib ugu noqdo halkii uu ka yimid inay ku qaadan doonto inuu week sugo taasoo la micnaa flight-ka xiga waxa uu baxayaa week kadib sidoo kale qofka haddii uu isku dayo inuu dhanka badda maro macquul maaha waayo jasiiradda yar waxa ku hareeraysan dhagaxaan fara badan oo badda xeeligeeda ku yaala taasoo ka hor istaagaysa maraakiibta waaweyn inay ku soo xidhaan xeebaha jasiiraddan dadka jasiiraddan ku nool waxay ahaayeen waqti dadka ugu lacagta badan leh maadaama jasiiraddan yar ay aad qani ugu ahayd maadada phosphate-ka loo yaqaano sanadkii 1975 jasiiraddan yar waxay noqotay wadanka ugu sarreeyay GDP-ga sanadlaha ee lagu xisaabiyo wadamada laakiin waqti xaadirkan iminka la joogo jasiiraddan yar wax khudaar ah oo ka bixi kara ma jiraan waxa ku badan isticmaalana waa cuntada la process gareeyay tan oo ka dhigta jasiiraddan yar inay kaalinta koowaad u gasho dadka ugu burburan adduunka iyadoo 60% dadka ku nool wadankan ay yihiin dad burburan sidoo kalena waxay kaalinta koowaad ugu jirtaa wadamada sigaarka ugu badan laga isticmaalo ninkan wuxuu sheegayaa inay ku qaadatay muddo bil ah sidii uu heli lahaa fiisada dalxiiska ee wadanka lagu yimaado lacagta caadiga ah fiisada lagu bixiyaana waa $50 laakiin qofka hadduu journalist uu yahay lacagta laga qaadaya waa lacag gaadhaysa $8,000 Australia waxaanu sidoo kale sheegay in markuu sida wadanka soo galay booliskiisu ay kala fureen drontii watay kadibna waxaan arkaynaa ninkan isagoo jooga meesha airport-ka waxaanu sheegayaa in runwayga diyaaradda ay cararto ee magaaladu iyo weliba dariiqa caadiga ay gawadhidu martaa ay dhinaca isku hayaan sidaa daraaddeedna markay diyaarad kacaysa ama degayso waxa qasaba in gawadhidu ay ka istaagto sababta ayaana in jasiiraddan yar ay gebigeedaba tahay jasiirad aad u yar qaybtan yar airportka loo xidhayna ay qaybta galbeed ee jasiiradda oo dhanba haysato badka guud ee ku fadhida jasiiraddan inuu yahayba 22 kiiloomitir square jasiiraddan gebigeeda si aad ugu soo wareegtana waxay kugu qaadanaysaa 20 minit oo keliyaba adigoo gaadhi adeegsanayana jasiiradda gebigeeda waad ku soo wareegi kartaa waayo waddo keliya ayay leedahay waddadaasoo ku soo wareegtay jasiiradda ninkanna markuu sidaa jasiiradda u soo galay wuxuu sheegay inaanu rabin inuu dadka isku soo jeediyo ama booliska hasaarkaan sidaa daraaddeed markiiba wuxuu la hadlay agensiga keliya dalxiiska qaabilsan ee magaaladan ka jira naag buuran ayaana lagu soo daray markiiba iyada magaalada soo kale tusiisay gabadhanna waxay u sheegtay in bishii ay yimaadaan 1 ama 2 qof oo keliya oo dalxiisayaali dhalinyaro burburan oo xeebta iska ka ciyaaraya ayaan weydiinaya waxa ay qabtaan marka ay jasiiraddan joogaan waxayna u sheegeen inay volleybalka iyo waxa iska ciyaaraan kadib ninkan wuxuu sheegayaa in jasiiraddani maadaama ay dad badan soo booqan ay tahay meel ay ku degaan shimbiraha qaaradaha iskaga gudba inkastoo jasiiraddan aan waxba ka bixi laakiin jasiiraddani waxay rich ku tahay maadada phosphate-ka oo nin geologist oo Albert Ellis la odhan jiray ayaa sanadkii 1899 ogaaday in dhulka jasiiraddani uu aad rich ugu yahay ama qani ugu yahay maadada phosphate-ka oo waqtigaasna la qiimahay dahabka oo aad loo raadin jiray iyadoo loo isticmaalo in kor loogu qaado wax soo saarka beeraha intii lagu guda jiray dagaalkii koowaad ee adduunkana Australia ayaa ka faa'iideysatay oo jasiiraddan yar ka dhigatay meel ay macdanta phosphate-ka ka soo qodo iyadoona ka iibin jirtay wadamada kale qiimo aad u jabanna kaga iibin jirtay naagtii la socotayna ninkan waxay tusaysaa qol xidhan waxayna u sheegaysaa in dadka waaweyn ee jasiiraddu ay sheegaan in Jabaaniisku ay isticmaali jireen markay jasiiraddan haysteen iyagoona qofka intay ku xidhaan xagga sare kaga gubi jiray intay gaas kaga shubaan dhanka kalena ninkan wuxuu soo eegayaa waddo tareen oo sii baaba'aysa taasoo la dhisay 1907 waxaana loo isticmaali jiray in lagaga raro jasiiraddan phosphate-ka markii jasiiraddan yar xornimadeeda ay qaadatayna ee sanadkii 1968 jasiiraddan xeebaheeda waxaa laga rartay macdanta phosphate-ka oo gaadhaysa 35 milyan oo tan iyadoo la odhan karaba qarnigiina dhaafay khudaar iyo midho fara badan oo dadka daafaha dunida ku kala nool ay cuneen waxaa lagu beeray phosphate-ka laga soo qaaday jasiiraddan markii jasiiradda yar ay xornimada qaadatay kadibna dadkii deganaa badankoodu waxay noqdeen dad hantiilayaala maadaama ay ka ganacsan jireen phosphate-ka dhanka kalena kumanaan shaqaale ah oo laga soo gurayay China iyo weliba wadamada kale ee Asia ku hareeraysan ayaa la keeniyay jasiiraddan si loogu qodo macdanta waqtigaasna jasiiraddan yar ee Nauru dakhliga sanadlaha ee calaa qof u soo gala waxa uu ahaa $176,000 sanadkii
2000kii waqtigan waa 1975kii halka isla waqtigaas wadanka Mareykanka oo hogaaminayay dhaqaalaha adduunka dakhliga sanadlaha cala qof soo gala ama GDP-ga waa $44,000 oo kaliya jasiiradda yar waxay abuurtay wadan dhaqaalahaan isku filan halkaas oo aanay ka jirin wax cashuur dadka in laga qaado waqtigaasna waxa waqtiyadii ugu fiicnaa ee jasiiraddan iyadoo caafimaadka waxbarashada transportationka iyo waliba dhammaan adeegyada kale ee guryaha dhammaantood ay wada ahaayeen qaar bilaasha gabadhii burneed ee la socotayna waxay u sheegaysaa markuu weydiiyey su'aashan inay arki jirtay ayideed oo intay bankiga lacag ka soo saarato ay ku guraan shandad kadibna ay dhabarka siga sidan jireen magaalada la soo dhex mari jireen meeshana waxaan oran karnaa meel lagu baraaray bay ahayd waqtiga waxaanu sidoo kale weydiinayaa inuu jiray nin booliisa kaasoo soo iibsaday gaadhiga Lamborghini-ga loo yaqaan qaaliga ah laakiin uu arkay inaanay jasiiraddan ku soo baxayn kadibna uu iska daayay waxaana uu sheegaysaa inay jirto arrintaasi iyadoo sidoo kale uu sheegay in gawaadhida ay iskaga soo iibsan jireen baxarag ahaan waxaanu ninkani soo marayaa gawaadhi hore oo qadiim iyo laamida dhinaceeda daadsan kuwaasoo ahaa weliba gawaadhidii waqtiga la adeegsan jiray moodhaladii ugu dambeeyey oo kadib markay lacag fara badan heleen dadkii waqtigaa noolaa ay soo iibsan jireen gawaadhidii ugu qaalisanaa ama moodhaladii ugu dambeeyey waqtigaas gawaadhidanana waqti waxay ahaayeen gawaadhi wadooyinka si xarag ahaana loo dhigto sidoo kale ninkan waxa uu soo duubaya xayawaano sida ay iyo weliba digaag meesha la keenay oo aan asal ahaan jasiiraddan ku dhalan jasiiraddan imika waxay la dala dhacaysaa kadib markii dadkii macdanta guranayay ee waqtigaasi ay jasiiraddii ka wada gurteen macdantii imika jasiiraddan waxna lagama beeri karo sidoo kale waxna lagama dhisi karo oo labaduba way ku adag yihiin oo way la dala dhacayaan sida awgeedna maadaama jasiiraddan aanay waxba ka baxayn dadka jasiiraddan ku nool waxay ku tiirsan yihiin alaabta process garaysan ama cuntada qasaacadaysan taasoo badanaa lagu soo dhoofiyay dalka Australia jasiiraddan oo waqti ahayd jasiirad isku filanna imika wax walba waa la soo dhoofiyaa 97% ragga jasiiraddan ku nool iyo waliba 94% oo dumarka jasiiraddani waa dad burburan ama overweight ah burnidan ayaana dadka jasiiraddan ku nool ku ah sida xanuun oo kale meel kastood marta waxaad arkaysaa dad burburan dhanka kale 45% dadkan burburani waxay la dala dhacayaan xanuunka macaanka dhanka kale jasiiraddan xataa fruitiska loo soo dhoofiya aad bay qaali u yihiin waxaad arkaysaa xabxabka oo kale $60 la siinayo mid xabxaba sidoo kale dhibaatooyinka ay kaga tagtay macdanta laga gurtay ayaa ku sababtay in qaybo badan oo ka mid ah jasiiraddan iyadoo ah marka horeba jasiirad yar inayna deganayn oo 14,000 oo qof ayaa lagu qiyaasaa dadka jasiiraddan degan marka dambe ninkan wuxuu aadayaa qayb aan la taaban oo ah meel la ilaalinayay oo biyo yar fadhiyaan waana meesha keliya ee jasiiradda aan laga taaban wixii ku jiray markaad meeshan dhex joogtana waxaad ka arki kartaa in waqti ay ahayd jasiiradda mid sidan oo kale cagaar u ah macdanteeduna ay ugu jirto qaybtan yar ee jasiiradda ka tirsanna waxaa lagu arki karaa iyadoo muusku ka baxayo tufaaxa iyo weliba fruitiskii kale way ka bixi karaan maadaama macdanteeda iyada weli ay ku jirto dhanka kale xeebaha jasiiraddan waxay leedahay dhagxaan aad u dhaadheer kuwaasoo qaaray gaadhayaan 200 oo mitir oo badda hoosteeda ah tanoo ka dhigaysa in maraakiibta waaweyn aanay kusoo dhici karin inay kusoo xidhaan dhagxaantan badankooda markay biyuhu quraan ayuunbaa la arkaa tanoo xataa ku adkaynaysa dadka meeshan ku nool inay xeebta ku fogaadaan amaba ay meel fog ku gaari karaan si ay u dabaashaan sidoo kale temperatureka average-ka ee jasiiraddan uu kordhay oo 30 digrii ayuu noqday maadaama jasiiraddani sidoo kale aanay lahayn wax webiyaal ah fresh waterka ay helaan ama biyaha saafiga ay helaan aad bay ugu adag tahay ilaa 2 milyan oo litir ayayna si dheeli u soo saaraan iyagoona kasoo meeranaya biyaha badda oo isticmaalaya reverse osmosis wax loo yaqaano dhanka kale ninkan marka dambe naagti waxay keenaysaa meel yar oo hara yar ah oo xagga hoose ku taala god ayayna ka gelayaan waxaanu sheegeen waqtiyadii dagaalka halkan laga geli jiray dagaalada jasiiradda yar wax caasimada male laakiin qaybta ninkan imika uu joogay yaaran lagu magacaabo ay ku wada yaalaan dhammaanba meelaha dowladda sida safaaradaha jasiiraddu sidoo kale waxay leedahay hal booliis iyo weliba hal demdemisna way leedahay iyo airportka yar ayuu kasoo degay jasiiradda yarna sidoo kale waxay leedahay 12 iskuul 3 high school iyo hal jaamacad dhammaanba dadka meesha ku noolna luqadda ingiliishka si fiican bay wada yaqaanaan saaxiibayaal haddaba muuqaalkan maanta inta baynu kusoo koobi doonaa fadlan subscribe noo saar haddii aad ka heshay muuqaalkan sidoo kale muuqaalkana like saar saaxiibayaal aad baad mahadsantiin